ururka Halafe Welfare Organization oo marka magaciisa la soo gaabiyo loo yaqaano HW oo kamida ururada aan dawliga ahayn ee ka hawlgala guud ahaan Somaliland gaar ahaan magaalada Boorama ayaa waxa uu maanta tababar u qabtay qaar kamid ah ardayda wax ka barta jaamacadaha kala duwan ee gobolka Awdal tababarkaasi oo lagu baranayay qaabka CV-ga loo qoro iyo interview skills-ka tababarkaasi oo ay soo qaban qaabiyeen maamulka iyo mas'uuliyiinta ururka HWO ayaa xidhitaankii tababarkaasi waxa xaggaasi ka hadlay Caaqil Xasan Obsiye iyo sidoo kale Haarun Cabdillaahi oo isaguna kamid ahaa ka qaybgalayaashii tababarkaasi ururkan HWO oo gudoomiyaha ka yahay Haarun oo muddo badan soo shaqeeyay xirfadda uu leeyahay hawshan oo maanta ku jiro intaa ka bacdi waxaan ummadda ugu baaqayaa inay ka qayb qaataan hawlaha ururkani leeyahay oo waxtar u leh bulshada gaar ahaan dhalinyarta rag iyo dumarba intaa ka bacdi waxa weeye maanta waxaan ku soo dhaweynaynaa halkan ururkan welfare Halafe welfare anigu muddaba waan la socday ama media kala soco ama meel kale baa la socday challenge badan bay wadaan insha Allah waxay u baahan yihiin in taageero badan la siiyo oo la garab istaago haddii hay'adaha tahay iyo haddii bulshada tahay waxaan ogahay anigu oo ay badan la socday oo la ii sheegay xitaa in Haarun Axmed Arme talaftiisa aan wareystay waxyaabaha bixinaysaan iyo challenge-kiisa walaalaha dadka ku soo celinaysa xageed ka keenta annaga jeebka ka buuxin oo ka aad iyo aad baan u mahadcelinayaa taageero u baahan yihiin in la garab istaago u baahan yihiin aqoonna way hayaano waxa weeyaan inaan ka faa'iidaysano aniga laftigeyga anigoo aqoontii leh haddana waxaan u imiday inaan ka faa'iidaysto bal qaybta kale maxaan ku dhahdaa CV-yada iyo professional inaan laga faa'iidaysto waayo waxa lama yidhaahdo waxbaa wada aqaan ma waxa weeyaan waa department aad u muhiim ayay keenay runtii waana waxyaabaha had iyo jeer maadaama arday aad tiinood wax baranaysiin waa waxyaabaha had iyo jeer ay ku fikiraysaan inaad wax codsataan ama hay'ad codsataan ee bulshada u badan tahay aad iyo aad baan ugu mahadcelinayaa insha Allah ururkan welfare inaan taageero ayaan rajaynayaa wax badanna way noo soo wadaan marka labaad xitaa oo idin waxa weeyaan inaan jaarjada dambe aan ka faa'iidaysano oo wixii ay yimaada ugu dambeyntiina gudoomiyaha ururka HWO Dr. Haarun Axmed Arme oo halkaasi ka hadlay ayaa aqoonyahanka kala duwan ee reer Somaliland ugu baaqay in bulshadooda ay wax ku soo celiyaan isagoona sheegay in tababarkani uu ururku jeebkiisa ka bixiyay Halafe Welfare Organization HWO waa urur non-profit ah Somaliland ka dhisan bulshadana raba in wax ku soo celiyo aqoonta maaha in qofka aqoonta aan baranay waxa weeyaan aan hay'ad u shaqeynaa laakiin bulshadeena community-geena wax ku soo celino hadafka ugu weyn waxa insha Allah ururkan waa asaasnayna wax ka bedelno maantana waxaan halkan ugu faa'iideynaa dhalinyarta aqoon-yahanada iyo professorada meesha fadhiya in wixii aan marna xirfadiyan kala faa'iidaysano tababarada maanta aan xirina waxa ka mid ah CV capacity building oo Dr. Abdul Rashid uu soo jeediyay iyo interview skills oo aan qornahay insha Allah waxaan rajayn doonaa tababaro badan oo aan soo wadna haddii la yiraahdo bulshada ku soo celinayo u faa'iideyno aad baad